waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta wararka daawadayaal qodobada warkeela aad ku daawadootaan waxaa ka mid noqon doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay inuu xilligan dalku ku jiro xaalad adag waqti kana muhiim ay tahay in farmaajo gibi ahaanba dalka xoog looga saaro General Tariq Disho oo sheegay inuu xuud oo dhibaato uu ku hayo dadka shacabka ku nool gobolka Hiiraan ciidamada xooga dalkana uu weerar ku soo qaaday Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in shirka Muqdisho ka socdo oo dhowr farmaajo ay ka qayb galayaan isla markaana wax natiijo aysan ka soo bixi doonin xadgudubyada ka dhacay magaalada Boosaaso maalmihii dagaalada oo la diiwaan galiyay iyo magdhow laga rabo Diyaane iyo Dani ayaan daawadayaal warkeena idinku soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee shirka Muqdisho ka soconayo haddii aad daawada janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka isla markaana wararkeena leegay sheerkii commentiga ugu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya ee warka janaalkeena runta wararka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu si cad u sheegay in waqtiga kan aysan munaasab ahayn in dalka farmaajo uu sii joogo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu si cad u tilmaamay in wax waliba ay wanaagsanaa lahayd isla markaana in go'aan cad laga qaato sida uu sheegay xaaladaha guud ee dalka waqtiga kan uu marayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaana tilmaamay in xaaladda qalqalka siyaasadeed ee waqtiga kan uu ku jiro farmaajo inuu sabab u yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaana waxa uu sheegay in farmaajo gibi ahaanba loo baahan yahay in dalka xoog looga saaro sida laga soo xigtay Warsame qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook isagoona xaaladda haatan ka taagan Soomaaliya ku tilmaamay midda Lubnaan oo kale waxaana uu sheegay in wax waliba muhiim ay u yihiin shacabka Soomaaliyeed sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ku ah taliska farmaajo ee 4 sano ee la soo dhaafay ku sugnaa Muqdisho inaysan wax muuqdo oo natiijo aysan sameeynin loogana baahnaa in ay natiijooyin wax ku ool ah ee la yimaadaan sida uu sheegay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame General Tariq Disho ayaa waxa uu eedeyn xoogan u jeediyay General Xuud isagoona sheegay in waqti kan dagaalada ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan uu isaga sabab u yahay taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya qaybta 27aad General Axmed Maxamed Cali Tariq Disho ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay ku jiro howlgalka caadiga ah ee weerar jidgal ah lagu sameeyay si la mid ah weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan taliyaha oo warbaahinta kula hadlay Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ciidamada laga been abuurtay oo lagu sheegay in iyaga weerarka qaadeen waxna uu tilmaamay in ay wax weerar ah ina qaadeen General Tariq Disho ayaana tilmaamay in uu xuud oo dhibaato badan uu ku hayo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan taasina marraba aysan suuragali doonin wax kasta oo dhacana ay ka hortagi doonaan waxa sidoo kale uu sheegay in taliska ciidanka xooga dalka gaar ahaan qaybta 27aad ay mar waliba ay diyaar u yihiin sidii ay mar walba ay kaga hortagi lahaayeen xaaladaha kala duwan ee mararka qaarkood ka dhacaya qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan Tariq Disho ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in deegaanada Hirshabeelle ay mar waliba diyaar u yihiin sidii Al-Shabaab iyo kooxaha dhibaatooyinka ku ay shacabka ay kaga saari lahaayeen ciidanka xoogana ay diyaar u yihiin in ay mar waliba ay difaacaan wali daawadayaal waxaad nagala socotaan janaalkeena runta wararka hadaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo leeg dheh wararkeena share iyo commentiga noogu dadaala shirka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wali Muqdisho ka socda iyadoona qodobada qaar la isku fahmi la'yahay shirkan ayaa waxa uu galay maalintiisa labaad iyadoona si gaar ah loogu falanqeynayo arrimaha doorashooyinka waxaa shirkani uu yahay mid si gaar ah waxyaabo badan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka ay madaxda maamul goboleedyada qaar ay ku falanqeynayaan inkastoo ay arrimo aad u adag waqtiga kan ay haystaan haddana waxaa ku sugan shirkani madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble magaalada Muqdisho ayaana waxaa ka soconaya shirka golaha wada tashiga qaran oo hormuudka u yahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasi oo horyaala arrimo xasaasi ah dabayaaqadii bishii December ee
lasoo dhaafay ayaa waxa uu ku waqtiyeysnaa in shirkani uu ka dhaco muqdisho hase ahaatee dib u dhac weyn ayaa ku yimid kadib khilaafyo xoogan oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho. maxamed xuseen rooble iyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waqtigan waxa uu yahay khilaaf aada u xoogan waqtigan mid ka dhex taagan inkastoo madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood aan si cad loogu tasha karin sida warar hoose aan helnay. cali guudlaawe iyo sidoo kale hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa ay yihiin kuwa taageero cad u muujinaya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo si la mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed filish. tanina waxay ka dhigan tahay in habraaca doorashada ay culays xoogan uu geli doono maadaama ay tani ay noqon doonto mid kale oo saameyn weyn ku yeelanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka, iyagoona hadda aan la ogeyn wax waliba waxa kasoo bixi kara shirkani ka soconaya magaalada tani muqdisho ee caasimada dalka. axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sacad u sheegay in shirka muqdisho ka soconaya ee waqtigan ay ka qayb galayaan dhowr farmaajo isla markaana wax natiijo uusan ka soo bixi doonin shirkaasi sida uu sheegay axmed macalin fiqi. axmed macalin fiqi wasiirkii hore ee amniga galmudug ayaa tilmaamay in wax waliba oo dhibaatooyin ah oo ka jira qeybo ka mid ah shirkaasi ay hadda sabab u yihiin dhowr farmaajo oo shirkaasi ka qayb galayso, isagoona hadalkaasi ugu gal lahaa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee taageersan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. waxaana tani u muuqanaysaa in xaaladda siyaasadda Soomaaliya ay maalinba maalinta ka dambaysa ay wajiyo kala yeelanayso. hase ahaatee wasiirkii hore ee amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa waxa uu tilmaamay rajada ugu wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ay leeyihiin ay tahay in shirkaasi natiijooyin wax ku ool ah ay ka soo baxaan. hase ahaatee waxa uu sheegay in shirkaasi wax natiijo aysan ka soo bixi doonin sida uu sheegay wasiirkii amniga maamulka galmudug. axmed macalin fiqi ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in go-aan kasta loo baahan yahay in bulshada waqtigan la garab istaago. haddii bulshada sidaan lagu sii daayo waxay muqdisho noqon doontaa mid xaalad adag geli doonto. dhanka kalena Saciid Cabdulaahi Dani iyo Diyaano ayaa hadda waxaa soo koraya culays aad u xoogan kadib markii beeladega qeybo ka mid ah deegaanada Puntland ay sacad u sheegeen in ay doonayaan magdhow dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso. xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha ee Puntland ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu kaga hadlay dagaalkii Boosaaso ka dhacay bishii hore. xafiiska ayaa dhowr qodob oo ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in dowladda laga doonayay inay magdhow siiso dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay dagaalka. sidoo kale waxay sheegeen in hub aan weli qarxin ay yaalaan goobaha lagu dagaalamay, taasina dhibaato badan ay shacabka ay ku noqonayso. dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ayaa waxa uu qaatay dhibaatooyin fara badan iyo dhaawacyo kala duwan oo dadka soo gaaray iyo burbur hantiyadeed, waxaana ay si cad loo sheegay in waqtigan looga baahan yahay magdhowdooda Diyaano iyo Dani oo ku dagaalamay magaalada Boosaaso. magaalada Boosaaso ayaa hadda xaaladeedu waxay tahay mid degan. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka daawadayaal waa naga inta haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar, wararkeena nala leega iyo sheerka iyo commentiga noogu dadaala. waadna ku mahadsantihiin daawashada warka janaalkeena runta wararka.